Dhul-gariirkan oo laga dareemay dalka Turkiga oo dhan, gaar ahaan meel u dhow xuduudda dalka deriska la ah ee Suuriya oo magaceeda la dhaho Gaziantep. Muuqaaladan aad hadda fiirsanaysaan iyo kuwa aad u fara badan ayay dadka soo duubeen markuu dhul-gariirka dhacayay. Qaylida, argagaxa, cabsida iyo dhawaaqa waad maqli kartaan oo dadka aad ayay u cabsanayeen dhammaantood. Dhismayaal deegaano ah iyo kuwo kaloo ganacsiba ayaa dhulka la simeen. Dad badan ayaa raadinayaan dad ay badbaadiyaan oo dhismayaasha ku hoos jiro. Waxaa sidoo kale jiro warar sheegaya dhismayaal ku burburay dalalka deriska ah ee Suuriya iyo Lubnaan dhul-gariirkan awoodda uu lahaa awgiis ilaa halkaas ayay gaartay. Gobolka Gaziantep waxaa ku nool 2 milyan oo Turki ah, waxayna martigelisaa ku dhawaad 1 milyan oo qaxooti Suuriyaan ah. Hay'adda sahanka ee dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhul-gariirka cabirkiisu uu ahaa 7.8, waxaana uu dhacay xilli ay waaberi ahayd waqtiga saqdhexe habeenimo. Dhul-gariirkan ayaa laga dareemay meelo fara badan ee Turkiga dhexdiisa. Dhismayaal badan oo dumeen ayaa la sheegay in dad qoys iyo carruur iskugu jiro inay ku xayiran yihiin. Waxaana leenahay Allah u fududeeyo dhammaantooda walaalaheena muslimiinta ah, inta dhimatayna Allah u naxariisto. Aan si qalbiyan ugu duceyno insha Allah wixii wararkaasi wax kasta oo kasoo gudboonaado dhul-gariirka Turkiga waxa insha Allah waan la socodsiin doonaa. Inta ba kala socodootiin dhammaantiin insha Allah. Aadna u mahadsantahay muuqaalkan fiirsigiisa.